dhakhaatiir ganacsato maalgashato Construction Company Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo kamida dhakhaatiirta cisbitaalka weyn ee Umud Hospital ee magaalada Ankara ee daweeyay gudoomiyaha shirkadda Albaraka Construction Company waxaanay ka mahad celiyeen sida weyn ee gudoomiyuhu u soo dhaweeyay waxaan dadka ka caawinaa dhakhtarada qofku marka hawl caafimaad oo maanta wadanka wax laga qaban waayay uu baahdo wadanka leeyahay sida inaan qofka ka caawino hawluhu u baahan yahay qofkaas xanuunsanaya ee u baahan xaalad caafimaad oo wadanka waxba laga qaban karin marka uu Turkiga yimaado inaan hawshii sida ugu fiican dhakhtaradii ugu wanaagsan adeegii ugu wanaagsan aan u qabano airport-kan ka soo qaadno isbitaalka keeno dawadiisii aan isbitaalka gudoomiyaha shirkadda Albaraka Construction markaan noogu yimid isbitaalkayga ugu daweeyay markaana hadda wadanka dib u soo laabtay booqasho ugu nimid aadna ugu soo dhaweeyay ilaahay ka ahaado caafimaadkiisana ilaahay u sii kordhiyo annaguna dhakhaatiirta ila socdaan maanta aad bay u farxay markay xaaladiisa caafimaad ay hadda control ahaan ay eegeen siduu u soconayo siduu xaaladiisa ay xagga ku eegno marka aad baan ugu faraxsanahay booqashadiisa iyo soo dhaweynta wanaagsan ee uu noo sameeyay. Thank you. geesta kale gudoomiyaha shirkadda Albaraka Construction Ali Aw Umar ayaa u mahad celiyay booqashada ay ku yimaadeen dhakhaatiirtii isaga hore u dabiibay dalka ee ka socday cisbitaalka Umud Hospital ee magaalada Ankara waxaanu ka warbixiyay waxyaabihii uu kala kulmay intii uu qaliinka ugu jiray cisbitaalka Umud Hospital ee magaalada Ankara isagoo bulshadana ugu baaqay inay ka faa'iideystaan cisbitaalka Umud Hospital ee magaalada Ankara oo waxyaabo badan bulshada reer Somaliland xaaladooda caafimaad kala tacaali doona waxyaabo badan u fududeyn doona haday tagaan cisbitaalka Umud Hospital waxana hadaladii gudoomiyaha kamid ahaa waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa dhakhaatiirta Turkiga Dr. Maxamed booqashada sharafta leh Somaliland ku timaadeen kadibna aniga u soo booqateen xanuunkaygiisa u xiriiraan baladalka xaaladu marayso aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa markaan ka gudbo anigu waxaan kulli dadka in badan baan shaqaano waxaan ahay gudoomiyaha shirkadda Albaraka Construction Ali Umar Ismaaciil waqti sanadkii aakhirkiisii aynu ku jiro ayaa waxaan ka dhacay masaajidka la yiraahdo cadeeye oo dhisayay ee aan oo jeegareynaya aan meesha qoom tireedo oo shaqo tuuray dabeedna aad baan ku noqday marka si degdeg ah ayaa diyaarin geeray la igu qaaday waxa la geeyay Ankara isbitaalka la yiraahdo Umud Hospital ayaa la geeyay dabeedna si emergency baa la geeyay muddo 3 bilood iyo xoogay baan dawo qaadanayay caafimaadkayga la shaqeynayay si toos ah waa la kabay feero wax jabay waa la kabay meelo badan oo dibaqaas qof aan dimeesar ka dhacayo la kuna dhacay sibir ku dhacay baan ahaa meelo badan wax ka noqday anigu aad u liitay liigay meesha الحمد لله رب العالمين aad baa dibadna wax la igu qalbay u qabtay aad baa la idaweyay Axmed Khalid Farax Ariel TV